Qaar ka mid ah aqoon-yahanadan oo aan la kulmay ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin falkii wuxuushnimada ahaa oo ay ku qaadeen xoogagga argagixisada ee Al-Shabaab maalnimadii shalay xarunta Wasaaradda Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowladda Soomaaliya, iyadoo inta badan weerarkaasi shalay dhacay ay waxyeello ka soo gaareen dad shacab ah oo aan waxba galabsan, waxaana ku sugnaa gudaha Wasaaradda Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowladda Soomaaliya tiro arday ah kuwaasi oo sugayay natiijada deeqo waxbarasho oo ay dowladda Soomaaliya ugu talagashay. Maxamed Cismaan Cali iyo Maxamed Carab Axmed waxay ka mid yihiin aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Suudaan, waxayna warbaahinta qaranka u sharaxayaan sida ay u arkaan dabargoynta ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed xoogagga Al-Shabaab, maadaama maalinba maalinta ka dambeysa ay dabargoynayaan aqoon-yahano, waxgarad, siyaasiyiin, culamaa u diin iyo weliba arday. Iyagoo arrimahaas ka hadlayana waxaa hadaladoodii ka mid ahaa: runtii falkaani waa fal aad iyo aad looga naxo. dhammaan ardada Khartoum wax ka baratana way cambaareynayaan falkan. waxaan leenahay dadkii geystay is yaqaaniin ka waantoobaan dib dambe yaan looga noqon. in alla intii dhaawacantana waxaan leenahay ilaahay shifa degdeg ah idin siiyo. waan ka wada xunnahay meel kasta aan joogno, waana cambaareynayna. waxaan diyaar u nahay insha Allah hadduu ay barnaamij ka dhigo dadka ayaga ah ee ku waxyeeloobay sidii looga qayb qaadan lahaa dabiibkooda iyo daweyntooda. haddaanu nahay ardada wax ka barata Khartoum, anigoo ku hadlaya afka sutaga ururweynaha ay ku midaysan yihiin xarakaadka Soomaaliyeed ee Khartoum. dabcan magacuna waa Maxamed Cismaan Cali Axmed. waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad weligeena aan xambaareynayna ka soo horjeedna falkan soo laalaabtay ee ah dabargoynta iyo indhaka tuurida ummadda Soomaaliyeed. waan xambaareynayna waana ka xunnahay. waa Maxamed Carab Axmed. waxaan aad iyo aad uga xumahay in maalin walba la laayo ardada iyo dadka aqoon-yahanada ay ka soo jeedo dalka Soomaaliya, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed looga daba tago meelaha ay ku qaxeen iyo meelaha ay wax ku baranayaan. waxaan si aad uga xunahay qaraxyada iyo falalka amni darrada ee dhulkii hooye ka jira, lana beegsanayo dadka masaakiinta ah, ardayda, aqoon-yahanada, masaakiinta, haweenka iyo ciyaalka, hoteelada iyo meelaha ganacsiga qaraxyada lala beegsanayo. aad baan uga xunahay. waxaan sidoo kale aad ugu wacyigelin lahayn dowladda Soomaaliya iyo ummadda amniga ummadda u haysa inay ummadda ay u gargaaraan oo ay falalka noocaas ka hortagaan maalmaha aamusnaanaya isla maalinkaana khasaaraha xoog la geysanaya. haddana ay guud ahaan ardada Suudaan wax ka barata waxaan aad uga xunahay qaraxyada la beegsanaya ardada Soomaaliyeed iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed iyo dadka masaakiinta oo aan waxba galabsan. nimankan hadday dad u dan leeyihiin meelaha ay joogaan dowladda iyo ciidamadu way yaqaanaan inay ardada maalin walba ku soo noqdaan. anigu waxaan u arkaa fal fulinimo aadna waan u cambaareynayna. haddaan nahay ardada Suudaan waxaanu garab taagannahay dadka masaakiinta maalin walba iyo habeen walba lagu qarxinayo hoteelada iyo goobaha ganacsiga, iskuullada iyo goobaha waxbarashada. nimankaasna waxaan u sheegi lahayn inay ka leexdaan dadka mustaqbalka ummadda ah, waayo mustaqbalka ummaddu wuxuu ka midho fiican yahay. ummadda meesha ay ka soo koraysa waa ardayda haddii la laayaan ummaddii way duntay. marka arrinkaas baan ku wacyigelinayaa dadka oo dhan. waxaan aad u salaamayaa guud ahaan ummadda reer Soomaaliya, ummadda Soomaalida meel walba joogto, ummadda ardayda Suudaan. aad baan idin salaamayaa iyo bahda saxaafadda maalin walba na garab taagan. aad baan idin salaamayaa. assalaamu calaykum. maahan markii ugu horeysay oo weeraro caynkan oo kale ah argagixisadu ku qaado xarumaha dowladda, iyadoo tii shalayna ay qayb weyn ka qaateen soo afjaridooda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gacantana ku dhigay qaar ka mid ah kooxihii weerarka soo qaaday halka ay toogteen kuwa kale. Cabbaas Maxamed Nuur, warbaahinta qaranka, caasimadda Khartoum ee waddanka Suudaan.